bixiyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada waxay uga dhigan tahay warkii ugu wanaagsanaa ee dhagtooda ku soo dhaca maadaama ay isku toosayso ciidda oo bilashadeedu maalmo naga xigaan iyo iyagoo ka walaacsanaa in ay heli doonaan xuquuqda ka maqan. wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Maxamuud Xajir Ibraahim ayaa sheegay inay bixinayaan dhammaan mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidankaba si ay ugu dabaaldegaan munaasabadda ciidda iyagoo faraxsanna ay dib ugu soo noqdaan shaqadooda. dowladdu waxay bixisay 5 bilood oo la soo dhaafay mushaaraadkii shaqaalaha, mushaaraadkii ciidamada, mushaaraadkii iyo gudooyinkii siyaasiyiinta waana ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo qorshihii iyo barnaamijkii xukuumadda oo la fulinayay. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in ay sidaas ku socon doonto. bishan May markaan hadda dhamayno waxaan bixin doonaa bisha June mushaharkeeda oo markaas isaguna xaq loogu yeelanayo dawladda. waxaan u mahad celinayaa bangiga dhexe oo runtii qayb weyn ka ah waliba iyadoo ay tahay waqti Ramadaan ah, waqti ziyaada shaqayn doona. wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa bogaadiyay tallaabadaasi wuxuuna sheegay in dawladdu ay ka go'an tahay in shaqaalaheedu ay helaan xuquuqdooda. runtii maanta booqashadan waxay tahay in bulshada la wadaago dawladda iyo waxay qabanayso. waa tii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo loo doortay in shacabka iyo dawladdu ay noqdaan dad isku xiran oo iska warqaba. runtii taas ayay ahmiyad gaar ah ayay ra'iisul wasaaruhu gaar ahaan siiyey arrintan iyada ah. maalmihii la soo dhaafayna uu aad uga shaqaynayay sidii dakhliga yar ee la hayo ee kooban oo runtii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo xisaabiyaha guudba ay maalin iyo habeenba uga shaqaynayeen sidii shaqaalaha mushaaraadkoodii looga gaarsiin lahaa ciidda. bishii barakeysneed Ramadaan baa lagu jiraa. taasna waxaa ilaa mahadiis ah in muxuu ahaa wasaaradda maaliyadda iyo bangigii iyo xisaabiyihii guudba ay maanta u soo bandhigayaan shacabka in shaqaalihii ciiddoodii laga gaarsiin doono. taasna waa runtii ahmiyadda koowaad bacdama ay dawladdan tahay dawladdii nabad iyo nolol. dhinacna amnigii ayaa laga shaqaynayo bishii barakeysan Ramadaan ciidamada ay sidii u howlgalayeen waa la socoteen. dhinacan kalena in shaqaalihii dawladda iyo ciidamadiiba mushaaraadkoodii la siiyo runtii ahmiyad gaar ah ayay dawladdu leedahay. waa sida wasiir Xayir sheegay shaqaalaha haddii la siiyo waxaa imaanayso ayagana waajibaadkii saarnaa inay soo gutaan oo ah in bulshada loo adeego. dawladdu waxay u joogto waxay tahay in bulshadaas loo adeego. fursaddan annagoo ka faa'iidaysanayno runtii dakhliga dawladdu wuxuu ka yimaadaa waa bulshada oo mar walba maaragtay muxuu ahaa waddan walba bulshadiisa ayaa dhaqaaluhu ka yimaadaa. dakhligaasna wuxuu keliya ku imaan karaa iyadoo qof walba waajibaadka canshuurta ku waajibtay uu bixiyo si bulshada loogu adeego. dawladdu waa shacabka, marka shacabkana waxaan rabnaa in kaalin mugle arrintan ka qaataan. mar kale waxaan mahad celinaynaa bangiga dhexe oo runtii juhdi badan ku bixiyey sidii ay wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud iyo maaliyadda yar ay soo xareeyeen si wanaagsan inta ugu maamulaan loo siin lahaa shaqaalihii. ugu dambeyn gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka waxa uu sheegay in bangigu uu bixinayo lacagta loogu talagalay shaqaalaha isla markaasna dawladdu ay ka go'an tahay in qof kasta oo shaqaale ah uu helo waxa uu xaq u leeyahay ee uu u dhididay ama uu shaqaystay. taniyo markii maamulka cusub oo dawladdan la doortay lagu socday oo ahaa in la dardargeliyo shaqada dawladda iyo in mushaarooyinka dadka xaqa u leh oo shaqaalaha dawladda iyo ciidamada moogtay si rasmi ah oo joogta loo bixiyo. runtii waa wax lagu farxo in muddooyinkii ugu dambeeyay oo dhan 5-6 bilood mushaarooyinka ayaan maalina baaqan si rasmi loo bixinayay. waa arrin kaalin weyn ka qaadanaysa horumarka dhaqaalaha dalka. waayo dhaqaale wax soo saar fara badan iyo dhaqaale fara badan oo dalka soo gala ma jiro. magaaladanu waxay ku nooshahay ama waddankaba moogtay saamaan weyn ku leh mushaarka bixintiisa. mushaarka bixintiisa waa dawladnimo, waa xaq soor iyo moogtahay xaqii ummadda wixii shaqo qabta oo moogta xaqoodii la siinayo. waa dakhli loo abuurayo ilo fara badan oo maalintii mushaarka la bixiyo magaalada oo dhan waa qoyaysa. waxaad moodaysaa in roob u da'ay iskuulkii iyo kharashkiisii iyo
dukaamadii iyo haddii la koron yahay kiradii iyo biilashii bixintoodii iyo noloshii oo dhan wixii noloshoodii dhanba maalintaas xoogaa ifaysa oo moogtay oo daarmaysa oo ay nolol ay soo noolaanaysaa arrintaas waxay ku timina moogtay dadaalkaas siyaadada ah oo dowladda hoggaankeedu ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay xoogga ay saareen in arrintaas mushaarka la xaqiijiyo in loo bixiyo arrintaasu waxay ka mid tahay barnaamijkaas weyn oo dhaqaalaha dowladda in meeshii wixii service ah oo dowladda ay qabanaysa iyo wixii canshuurtii ummadda wixii laga soo qabtay wixii dakhliga dowladda soo gala in si fiican loo maamulayo oo meelahaas ugu mudan oo halbowlaha iyo moogta waxoodii laga siinayo dowladda waa ku mahadsan tahay annagu banki ahaan kaalin baan ku leenahay kaalintaas aanu ku leenahay oo ah inaanu servicekaas fulintiisa aanu ugu adeegno dowladda baanu gudanaynaa saraakiishii iyo shaqaalihii hoos ku aragteen iyo halkaan iyo aniga guddoomiye ku-xigeenkii aanu idinla fadhino waa ku mahadinaynaa dowladda howlwadanada waa ku mahadinaynaa wasiirada iyo inta shaqadaas hawshaas fulinteeda ku howlan oo runtii dadaalkaas faraha badan ka muujisay waa ku ammaanaynaa waxay ahayd hadda ayaamaha shalay iyo waxay ahayd amar gooniya oo ra-iisul wasaaruhu si gooniya weliba uu xil isaga saaray oo uu yidhi mushaarka shaqaalaha waa in ciidda ka hor la bixiyaa arrintaasna deed waxa weeye waa midaan hadda aad ujeedaan oo fulaysa aad baad mahadsantihiin laga bilaabo beri ilaa sabtida waxaa la bixinayaa mushaaraadka isku darka ciidanka qaranka iyo shaqaalaha rayidka munasar maxamed cabdi goob